لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. fadhigan waa fadhiga sideedaad ee ka mid ah fadhiyadii su-aalaha ramadaanka ku saabsanaay ee inta badan baad kala socon jirteen kanaalka xogta salafka oo ka mid ah kanaalada khayrkii wanaagga ka shaqeeyo. fadhigaynan galabta insha allahu tacaala waxaan kusoo qaadan doonaa su-aalo 5 ah oo su-aalihii walaalada kanaalka ku xiran naga soo gaaray qeybo ka mid ah. su-aasha koowaad walaalkan waxa uu leeyahay, qofka ee caqligiisa uu dhiman yahay ama jug gaartii wax gaari wax ku dhacay baa caqligiisa nuqsaan iyo dhimanaashaha ugu timaado, amaba qof ku dhashayba sidaa ha noqdee qof waalina aan gaarsiisaneyn, qofka iyada ee soomkiisa muxuu yahay, muxuu noqonayaa? jawaabtu waxaan leenahay qofka noocaasa waxba laguma laha maadaama aan caqligiisa mutakaamil yahayn oona caqligiisa dhammaystirneyn, waxba laguma laha. waxayna leeyihiin culimada waxaa u daliil oy hoosgeeyeen xadiidkii nabigu u lahay calayhi الsalaatu wasalaam, rufica alqalamu can 3 xadiidkaas ay culimada hoosgeeyeen una daliishadeen inaan waxba lagu lahayn soon iyo salaad iyo midna. waxaay sidaa oo kalaato culimada qaarkood baa waxaaba soo naqleen ijmaac, si ibn cabdilbar raximah llahu tacaala kitaabkiisa tamhiidka ayuu kusoo guuriyaa. sidaa daraaddeed marka kaa waxba laguma laha. wabilaahi towfiiq. su-aasha labaad saa'ilka waxa uu leeyahay, gabar baa dhiigga caado uu ku dhacay, maalin bay aragtaa, maalin way waydaa, 2 maalmood camal bay qabaysaa, haddana waa waysaa. taqriibu haddo muddo ayuu sidaa ku hayaa. gabadhaas soonkii salaaddii maxay ka yeelaysaa? jawaabtu waxaan leenahay gabadha xaalkeeda 2 midkood unbuu yahay. ama gabadha xaaladda nooca ay qabsato, culimada fuqahada gaar ahaan culimadeena shaaficiyada talfiiq bay u yaqaanaan. gabarna marna maalin dhiig arkayso, marna waaynayso. waxay leeyihiin marka 2 midkood unbuu yahay. haddii intuu socday ayna dhaafin 15 maalmood intay daahir aheed oy waynaysa dhiiggo, iyo maxaa la yidhahaa inta ay dhiigga arkaysay haddii la isku dardaro 15 maalmood waa inayna dhaafin. midda labaadna waxay leeyihiin xagga macnaha dhanka kalena waa inayna ka yaraanin maalin iyo habeyni maalin oo aqalul xaydi ahayd. dhiigga gabadha intuu ugu dhacay intu ugu yar cinda shaaficiya yowmun wa leyla wey. marka yowmun wa leylana waa inayna ka yaraanin intay arkaysay. inta uu socdayna iyo inta ay macnaha daahir noqonaysiin marka la isku dardaro 15 maalmood waa inayna ka badanin. sidaa hadday noqoto waxaan gabadha ku dhacay waxaa laga soo qaadaa dhiigga caadad inuu yahay ayaa laga soo qaadaa. inta iyada salaadna tukuni mayso, soonna soomi mayso. haddii marka sidaa uu yahay habeyni maalin aadna ka yaraanin, 15 maalmoodna aadna ka badanin, markii la isku dardaro intay dhiigga arkaysay
iyo inta maxaa la yidhaahaa aw macnaha ay weynaysiba marka waxaa laga soo qaadaya dhiig caadi inuu yahay way iska daynaysaa salaadaha iyo soonka iyo dhammaan way ka daynaysaa looma ogolo culimada qaar waa jiraano sida xanaabilada kaleeto ayagoo intay daahir tahayno daahir aragtiin daahirka laga soo qaadaya way qabaysanaysaa oo salaaddii way tukunaysaa inta maxaa la yidhaahaa ay u aragto intuu dhiigga ay aragtana ayada inay dhiig qabtay iska soo qaadaysa dhahayna waa jiraan laakiin madhabkeenna annaga shaaficiyadu waa sida hore oon sheegnay weeyaan ama hadduu 15 maalmood ka bato haddee dhiigga caadada intuu socon jiray oo ka batay markaa dhiig furanki ayaa loo ictibaarinayaa taas waxbaan soonkii salaaddii yeeli maayo su-aal hore ayaana taa ku soo marnay dhiig furankii waxay ku saabsan wabillahi towfiiq saa'ilka saddexaad waxa uu leeyahay ayaantan xanuunno ayaa soo kordhay xanuunnadaas ay ka mid yihiin dadka keliyaha ka xanuunsada laga dhaqo oo dhiig lagu shubo oo macnaha keliyaha laga saafe macnaha laga dhaqo oo laga saafe gareeyo soonka ma burinayaan arrinta noocaasa keliyaha oo la dhaqo jawaabtu waxaan leenahay haa maxaa yeelay waxbaa lagu shubaya waxna waa laga saaraya saas daraaddeed marka maadaama wax lagu shubayo dhiiggii macnaha waxaa weeyaan maxaan rabaa soonkii waa u burinaya arrintaas soonku way kaga buraysaa wabillahi towfiiq saa'ilka afaraad waxa uu leeyahay qof bay biyo ka yimaadeen biyaha shahwada ayaa ka yimid waxayna ugu yimaadeen fikir oo uu ka fikiri waxyaalaha shahwada kiciyo uu ka fikiri kadibna shahwadii baa sidaa iyo biyihii ayaa sidaa ugu yimid intuu dareenkiisa kacay marka maadaama fikir uu iska yahay oo shaqo kaloodna qabtina aysan jirin maxaa weeyaan soonkiisa arrintaa maxay u dhimaysaa jawaabtu waxaan leenahay culimada badankooda siday qabaan waxyaalaha qofka intuu maskaxdiisa ka fikiro sidaa ugu yimaado hadday maskaxdii intuu ka fikiray biyaha sidaa ugu yimaadaan soonka ka buri maayo insha allahu tacaala culimadeenna shaaficiyaduna arrinta way ka hadleen sida alimaamu nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisa rawdada uu ku caddeey culimo kaleo shaaficiyada ka midna ay caddeeyeen waxayna u deliishadeen culimadeenna raximahum allahu tacala raxmatan waasica xadiidka abu hurayra uu nabigu yidhi calayhi salaam in allaha tajaawaza liummatii ummadayda ilaahi waa u dhaafay subxaanahu wa tacaala oo u qaban maayo waxyaalaha nafteeda ay ku sheekayso maa lam tacmal bihi ow tatakalam haddii ayna ku camal falin waxaas ayna xibnihii ka samaynin masemaahay ayna ku hadlin oo afka kaga hadlin marka wixii fikir mujarad ee ku yimaado ayadu waxaa weeye qasdina ma aha lagama soo qaadi karo sidaa daraaddeed marka ayagu waa iska macfi weeyaan soonkii burini maayaan saa'ilka ugu dambeeyo waxa uu leeyahay haddii ay ugu tagaan biyaha luqluqishada anoo ku luqluquna ay igu tagaan oo calooshii sidaa ku aadaan samaaha biyaha aan ku sandaarsanayo sanka fiif ku laha ay igu tagaan soonkaydii maxay yeelayaan jawaabtu waxaan leenahay culimadeenna aniga sida madhabka ah waa in la kala qaado wey inaad ku fogaato oo biyihii soonkii macnaha adigoo sooman biyihii aad sanka aad u geliso ama afka aad ugu luqluqato way kadibna sidaas adigoo ku fogaada ay kugu tagaan soonka waa kaa buraya haddiise laakiin aadna ku xeel dheeraanin oo aada tartiib adoo u qaadanay sidaa adigoon isgaranaynin ama aan u qasbin ay kugu tagaan aadna ku xeel dheeraanin nin ku fogaadin aadna hayn kaas waxaan leenahay soonka kaa buri maayo sida imaamu nawowi raximah llahu tacala iyo keyrkiisba ay caddeeyeen kitaabkiisa rawdada iyo minhaajkii uu ku caddeeyba marka waxayna culimadu u daliishadeen xadiidka nebigu uu lahay calayhi salaatu wasalaam wabaaliq fi listinshaaqi ila an takuuna saa'iman istinshaaqi iyo sandaarsashado ku fogaa baa layidhi si fiican biyaha sanka uga jiid ila an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooyaane fa birifqin baa layidhi marka haddii aad sooman tahay si tartiibto ah ee aana aad u fogeen u qaado halkaas xadiiska hoose waxay culimmadu ka garteen in la kala qaadayo marka haddii aad ku fogaato dee soonka wuu kaaga buraya maxaa yeele ha ku jiidin baa lagu dhahay adoo sooman
hana ku fogaanin baa lagu yidhi waad ku fogaatay wixii lagu amray baad diiday waad khilaaftay markaas waa lagaa rabaa soonkii waa kaa buraya haddiise laakiin birifqinkii adoo ku qaadanaya si tartiib u qaadanaya ay kugu tagaan taa iyadu wax dhibe ma laha fadhigeennii sideedaad un maanta su-aalaha shanta kusoo qaadanay intaa ayaan kusoo koobaynaa ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala ramadaankan gabagabada sii maraayo oo haddaba kala bar aan durbaba dhaafnay in ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii ka faa'iidaysto la waafajiyo dembigooda lagu dhaafo kii waalidkood lagu dhaafo kii mashaayiikhdooda iyo culimadooda iyo qaraabadooda lagu dhaafo inuu ilaahay naga dhigay subxaanahu wa tacaala masaa'ibadaan wareegaysana iyo cudurradaan socdana inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naga badbaadiyo meel kasta oo nacnaha dadka muslimiinta ay joogaan gaar ahaan dadka soomaalida iyo intana maqlayso ayaan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala khayrkaana ha laysii gaarsiiyo addaalu cala alkhayri ka faacilii buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hada wabillahi towfiiq sala allahu wasalama calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam